وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. ومركز برنامجك كبر هودا وكبحت في قرك إذا عد ريدي ورقيسة ومع عبد العزيز أحمد جامع وإذا الله سعودين دونا حيصدي حسابته الدكسة سنة جارهان فورم 1 waxay ku guda jirnay chapterkeeni labaad ee form 1ka oo inoo noqonaya algebra khaasatan waxaynu maraynaa 10keeni 17aad marka 10ka aynu maanta dhiganaynaa wuxuu ka bilaabmayaa page number 4 ilaa 6 10ka aynu maanta dhiganaynaa wuxuu ka bilaabmayaa page-ka 94 waxaynu ku wada jirnay linear equations with two variables linear equation kii lahaa labada variable oo inoo noqonaya simultaneous equation isleegay wada jira afar way baa lagu xalinayay laba kamid hore inoo soo qaadanay xiisadii 16aad waxaynu qaadanaynaa weygii saddexaad oo inoo noqonaya comparing method habkii isbarbardhiga why solve this simultaneous equations by comparison method. Simultaneous equation ka waxaad ku xalisaa baa leeyahay comparison method. Maadaama comparing method yahay habkii isbarbardhiga marka hore labada egas baynu ka dhiganaynaa subject formula sidaynu horeba ugu soo shaqaynaynay markaa kadib baynu labadooda isbarbardhigaynaa. Select horeynu haysanaa waxa weeye egas plus 2y baa waxay la mid tahay 29 egas si subject formula ay noqoto kaliya waa inaynu qaybtan un iska wareejinaa marka egas waxay noqonaysaa 29 minus 2y egas waxay noqonaysaa 29 minus 2y waa inaga ka dhignay subject formula sidaas si lamida select kaleenu haysanaa waxa weeye selectii kala soo qaadanaysaa egas plus y baa waxay la mid ahayd 18 egas plus y is equal to 18 iyadana sidoo kale egas down baa waxa laga dhigayaa subject formula say egas doon noqoto subject formula y dun baynu iska wareejinaynaa yaani waa iyadoo laga dhado solve for egas oo kale egas xalli egas markaa waxay la mid tahay 18 minus y ilaan plus y bay ahayd equation markay hareer marto waxay noqon minus haddaba labada egasay noo soo baxay baynu comparing ku samaynaynaa waynu isbarbar dhigaynaa ardayo tii hore waxay noo soo baxday 29 minus 2y intaasaa waxay leegtahay baynu odhanaynaa 18 minus y halkaa markaad joogto wixii like terms baa dhinac la isku mariyaa halkaa markaad joogto wixii like terms baa dhinac la isku mariyaa wixii like terms dhinac la isku mariyo waxaynu uga jeednaa kan iyo kana dhinac baynu isku marinaynaa labada wayna dhinac baynu isku marinaynaa kan 29 ka markaan wareejiyo meesha waxa igu soo hadhaysa minus 2y y daa soo wareeji plus y halkaas 18 baa ku hadhay kana wareeji minus 29 y labada namis wixii like terms ayaynu dhinac isku marinay tibxii isku midka ahaa yaani labadii wayda ku jirtayna dhinac baynu isku marinay numberskeena dhinac baynu isku marinay collecting like terms way labadani miyay isku tagayaan mise way kala go'ayaan ardayo minus 2y plus y way kala go'ayaanoo minus y baa soo hadhaysa equal
labadana markaad kala goyso minus 11 baa kuu soo hadhaysa 18 laga gooyo 29 waa 11 laakiin minus baynu raacinaynaa maadaama kii weynaa wato minus si y keliya loo helo waa inaan dhinac kasta minus u qaybiyaa halkanna minus baan u qaybinayaa halkanna minus baan u qaybinayaa haddii halkaa minus loo qaybiyo waxay noqonaysaa positive y equal halkanna haddii minus loo qaybiyo waxay noqonaysaa positive 11 sidaas daraaddeed y-deeni waxay noqotay plus 11 waxaa hadhay egastii si aynu u helno ama isleegtan ama tan baan kala soo baxayaa waa inagii egas ka dhiganay subject formulae labadan subject formulae noo soo baxay mid ka mida baynu kala soo baxaynaa tan baan soo qaato egas baa waxay la mid tahay baa layidhi to find egas si aynu egasna qiimaheedii u helno waxaan odhanaynaa egas baa waxay la mid tahay 18 laga gooyey y maadaama y kuu soo baxday 11 meeshay y taalluun baad 11 ku bedelaysaa sidaas daraaddeed egas baa waxay noqonaysaa 18 laga gooyey 11 egas markaa waxay noqotay haddii labadaa la kala gooyo waxa weeye 7 waayahay waynu iska jeegaraynayna ilaa xiisadii hore in qiimayaashan doorsoomayaasha ay noo soo baxay inay sax yihiin iyo inay khalad yihiin markaa check bal hadda aynu checking ku samayno si aynu u jeegarayno waxaynu la soo baxnay inay sax yihiin inay khalad yihiin labadii isleeg mid ka mid ay soo qaat isleegta hore haddaan soo qaato egas plus 2y baa waxay la mid ahayd 29 egas plus 2y baa waxay la mid ahayd 29 egas meeshay taallo qiimaheeda ku bedelo 7 y meeshay taallana qiimaheeda ku bedelo 11 waxay noqonaysaa 7 plus 2 into 11 equal 29 7 plus 11 ku dhufo waa 2 equal 29 haddii 22 iyo la isku geeyo 7 waa 29 equal 29 maadaama labadii dhinac isleekaadeen waxaynu odhanaynaa solutionkeenu sax weeyaan waay hadda xabad labaad oo lagu xalinayo by comparison aynu wada eegno xabad labaad oo lagu xalinayo by comparisonna example-ka number 5 ay ku qoran tahay ee ku yaala page-ka 95 waay example-keena 5aad ee noo noqonaya comparison-kana example-ka labaad aynu wada xalino waxaad solve this simultaneous equation-ka waxaad ku xalisaa by comparison method habkii isbarbardhigga ku xali habka isbarbardhigga si aynu ugu xalino labada isleeg mid baad qaadani egastaa labadaba waxaad ka dhigi subject formula markaa kan hore waxaynu haysanaa egas plus 3y baa waxay la mid tahay 8 si egas looga dhiga subject formula keliya 3y gan iska wareeji egas waxay noqonaysaa markaa 8 minus 3y that's all inagaa ka dhiganay subject formula egas isleegta labaad inoo soo qaad waxaa weeye 4 egas plus y baa waxay la mid tahay minus 1 iyadana isla egas waxaad ka dhigtaa subject formula iyadana egasta waxaad ka dhigtaa subject formula si aynu egas subject formula uga dhigno horta waa idan wareeji 4 egas baa waxay la mid tahay minus 1 minus y 4 egas maadaamay noqotay minus 1 minus y egas keliyata si loo helo xaggana 4 u qaybi xaggana 4 horgalaha egastoo 4 ahaa dhinac kasta u qaybi halkaa markaynu 4 u qaybino egas baa inoo hadha equal minus 1 minus y divided by 4 haddaba labada kuu soo baxay egas waa adigan ka dhigay subject formula egas tii kalena waa adigan isleegtii kale egas ka dhigay subject formula haddaba labadooda waxaad ku samaysaa comparing method comparing ku samee labadooda isbarbardhig yacni waay labadooda waxaad ku samaysaa comparing tii hore waxay noo soo baxday 8 minus 3y baa waxay la mid tahay ilaa labadaba egas baa la mid waxay la mid tahay minus 1 minus y divided by 4 waay 8 minus 3y hooseyaheedu waa 1 kana waa fraction
markaa laba fraction oo equal ka dhaxaysa haddaad aragto kolley cross multiplication baad samayni si talantaaliya baad iskugu dhufan halkaa hoosyadu waa 1kii minus 1 minus y buu ku dhici 4kana 8 minus 3y baa lagu dhufani markaa 4kan unbaa halkan inoogu dhacaya haddii halkaa hooseeya ooli lahaa dhinacaasu isna ku dhici lahaa laakiin waa 1kuna waxba kordhin maayo 4 into 8 minus 3y baa waxay la mid tahay minus 1 minus y 4ka intaa bracketka ku jirta ku dhufo 4 ku dhufo waa 32 minus 4 times minus 3y waxa weeye minus 12y baa waxay la mid tahay minus 1 minus y halkaa markaad joogto ardayow wixii like termsa dhinac isku mari halkaa markaad joogto wixii like termsa tibxaa like termska ah dhinac isku mari tibxaa like termska ah dhinac isku mari waay halkaa 230 baa yaala minus 1 kan baan soo wareeji waxaan u jeedaa halkan minus 12 baa yaala minus 12 kan soo wareeji plus y equal halkan minus 1 baa ku hadhay kana wareeji minus 32 y-dana xag minus y-dana xaggan baan soo wareejinay plus 32 gana dhinaca kale inuu wareejin haddaba minus 12 y ka dhig minus 12 y minus 12y plus y labadan way kala go-ayaanoo minus 11y bay soo baxaysaa equal labadana waa laba minus oo way isku tegayaanoo minus 3 bay noqonaysaa si y keliyaata loo helo si aad y keliyaata u hesho waxaad haysataa minus 11y baa la mid noqday minus 3 halkana waxaad u qaybisaa minus 11 xaggana minus 11 minus u qaybi waa plus 11 u qaybi halkaa waxaa ku hadhay plus y equal labadan minus markay isku qaybsamaan waa positive 3 u qaybi waa 3 y-dii waxay noo soo baxday ardayow positive 3 waxay noo hadhay maxay ahayday egastii sidii aynu horeba ugu shaqaynaynay egasta labadan subject formulate samaysay mid un kala soo bax ta horeba ii soo qaad fine x si egas loo helo egas baa waxay la mid ahayd 8 minus 3y meesha y taaluun qiimahan positive 3gay soo baxday ku bedelowdayo kadibna egas waxay noqonaysaa 8 minus 3 qaws fur halkaa y-da waxaad ku bedeshaa 3 egas waxay noqotay 8 minus 9 haddii labadaa la kala gooyo waxa weeye minus 1 y-na waxay noo soo baxday negative 1 aynu jeegarayna bal hadda inay sax tahay inay khalad tahay ardayo check labadii isleeg baan mid ka mid a soo qaadanayaa sidii hore oo kale 4 egas plus y baa waxay la mid tahay minus 1 egas meeshay taallo waxaad ku bedeshaa minus 1 y-na positive 3 4 into minus 1 plus y oo 3 equal minus 1 4 minus 1 ku dhufo waa minus 4 plus 3 equal to minus 1 plus 4 minus 4 plus 3 minus 1 baa soo hadhaysa equal minus 1 maadaama labadii side ay isleekaadeen waxaynu odhanaynaa solutionkeenu waa sax habkeenii saddexaad oo noqonayay comparing method halkaasaynu kaga gudbaynaa labada example baa inagaga filan labada example unbaana meesha inoogu yaalay weygii afraad baynu qaadanaynaa oo noqonaya by graph simultaneous equation iyadoo lagu xalinayo by graph waayahay ardayo hadda imigana waxaad ku xalisaabaa laynagu yidhi maxay ahayday by graph waa weygeenii afraad ee simultaneous equationka oo aynu ku xalinayno by graph waxaynu ku xalinaynaa weygan by graph waa weygeenii afraad saddex weeye horeynu soo marnay weygii koowaad waxaynu ka dhiganay by elimination habkii isku goynta iyo kala goynta weygii labaadna wuxuu inoo ahaa by substitution habkii ku bedelashada weygii saddexaad waxau inoo ahaa by comparing method habkii isbarbardhiga weyga afraad baa wuxuu inoo noqonayaa by graph
simultaneous equationka meesha yaalla baa lidhi waxaad ku xalisaa solve graphically graph ahaan ku xalli saad graph ugu xalisa ardayow waxaad u baahan tahay mastarad waay graafka ka hor waxaynu samaynaynaa graafka ka hor baa waxaynu samaynaynaa inaynu maxay ahayday y-da ka dhigana subject formula labada isleegba y baa waxaan ka dhiganayaa subject formula table baan samaysan doonaa tablekaasaa waxaan ka sawiri doonaa maxaa ahayday qiimaya inay pointiska inoo soo baxaynu sawiri doonaa isleegta hore waxaynu haysanaa 3x plus y baa wuxuu la mid yahay 3x plus y baa wuxuu la mid yahay 3 y-daasi aan subject formula uga dhiga waa inaan 3x ka wareejiyaa y waxay noqotay 3 minus 3x y baa waxay noqotay 3 minus 3x halkaa markaad joogto waxaad samaysanaysaa table points si aad u hesho points baad qaadanaysaa markaa egasta waxaad u qaadan qiimayaalkaa dhowdhow zeroga number linekii markuu kan yahay halkaasi markay zero tahay positive 1 positive 2 positive 3 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 qiimayaalkaa dhowdhow zero baad qaadani haddaad qiimayaal badan qaadato haddaad number weyn qaadato meesha kuu qaadi mayso mushkilad buu kuu keeni keliya waxaad samaynaysaa waxaad qaadataa nambara kaa dhowdhow zeroga markaa table yar baan samaysanaya halkaa egas baan dhiganayaa xaggaana waxaan dhiganayaa y egasta innagaa qiimayaal u qaadanayna waxaynu u qaadanaynaa numbaris kaag dhow zeroga tusaalahaan waxaan ka bilaabanayaa haddaan ka bilaawdo minus 2 minus 1 0 1 2 iyo 3 waaye egasta adigaa qiimayaasha qaadanaya laakiin y-da waad la soo baxaysaa points baad helaysaa markaa baraad helaysaa barahaasaad sawiraysaa markaa straight line graph baa kuu samaysmaya ilaa waxaynu ku jirnaaba waa linear equation waxaan isweydiinaynaa markay egastaadu tahay minus 2 y-daadu imsay noqonaysaa isleegtan baa equationkan baa lagala soo baxaya waxaan odhanaynaa markay egasteenu tahay when egas is equal negative 2 markay egas tahay minus 2 y-dii waxay noqonaysaa y is equal 3 minus 3 egas halkay egas taalluun baad qiimayaasha marba mid ku bedelanaysaa egas kasta y-deedii baad helaysaa markaa egas iyo y markaad heshana baraad heshay barahaasun baad hadhow sawiraysaa y markaa waxay noqonaysaa 3 minus 3 into minus 2 minus 3 minus 2 ku dhufo waxa weeye plus 6 markaa y waxay noqonaysaa 3 plus 6 labadaa haddii laysku geeyo waxa weeye positive 9 labadaa haddii halkaa markaa waxaynu ku buuxinaynaa positive 9 waay dana waxaan odhanayaa markay egastaydu tahay maxay ahayday minus 1 markay egasteenu tahay minus 1 y-deeni waxay noqonaysaa 3 minus 3 egas meeshay taalluun baan minus 1 ku bedelayaayo sidaas daraaddeed y waxay noqonaysaa 3 minus 3 into minus 1 minus 3 minus 1 ku dhufo waxa weeye plus 3 markaa y waxay noqonaysaa 3 plus 3 labada haddii laysku geeyo waxa weeye 6 halkaa waxay noqonaysaa positive 6 waxaan odhanaynaa markay y-deenu tahay wen egasteenu baan ujeedaa markay egasteenu tahay 0 y-dii maxay noqonaysaa select equationkii baad soo qaadanaysaa egas meeshay taalluun baad 0 ku bedelaysaa y waxay noqonaysaa 3 minus 3 into 0 minus 3 0 ku dhufo waa 0 markaa y waxay noqotay 3 minus 0 oo la mida 3 halkaasina markay egasteenu tahay 0 y-deeni waxay noqonaysaa positive 3 haye markay egastaynu tahay 1 when egas is equal to 1 y waxay noqonaysaa 3 minus 3 egas bay ahayd isleegtaynu haysanay y is equal 3 minus 3 egas meeshay taalluun positive 1 ku bedel waa 3 minus 3 into 1 minus 3 1 ku dhufo waa 3 waa minus 3
3 minus 3 na waxay noqonaysaa 0 egasteenu markay 1 tahay y-deenu waxay noqonaysaa 0 waayahay waxaan odhanaynaa markay egasteenu tahay 2 when egas is equal to y waxay noqonaysaa isleegtiin baad soo qaadanaysaa isleegteyni waxay 3 minus 3 egas isleegteyni waxay ahayd 3 minus 3 egas markaa y waxay noqonaysaa baynu odhanaynaa 3 minus egas meeshay taaluun positive 2 ku bedel 3 times 2 y is equal 3 minus 3 times 2 waxa weeye minus 6 3 minus 6 na waxa weeye negative 3 markay egasteenu tahay positive 2 y-du waxay noqonaysaa negative 3 last markay egasteenu tahay when egas is equal to 3 y waxay noqonaysaa 3 minus 3 egas egas meeshay taaluun qiimahan ku bedelo y waxay noqotay 3 minus 3 into 3 y is equal 3 minus 3 ku dhufo waa negative 9 labadaa kala go 3 minus 9 waa negative 6 markaad laba number kala goyso ka weyn calaamadiisa qaado negative 6 waxaynu helnay tablekii waynagaa samaysanay inaynu imika graafkii samaynaa aad bay u fududahay inaynu graafkii samaynaa aad bay u fududahay sidaas daraaddeed isleegtii horaan soo qaatay y baan ka dhigtay subject formula isleegtii horaan soo qaatay y baan ka dhigay subject formula egaspan points egaspan values qaatay egaspan qiimayaal u qaatay y-da laakiin inagaa la soo baxnay dabadeedna waxaynu helnay baro imiga halkani waa bar minus 2 egasa iyo plus 9 y bar bay noqonaysaa coordinate bay noqonaysaa waxaynu isweydiinaynaa labadaasi markaynu samaysano maxay ahayday graafka labadani halkay ku kulmayaan baynu isweydiinaynaa labadani halkay ku kulmayaan baynu isweydiinaynaa dabadeedna barahaasun baynu isku wada xidhi doonaa straight line graph baa inoo samaysmi doona waayo isleegtaynu haysanaa waa linear equation horeynu usoo sheegnay waa isleeg kasta oo jibaarkeeda ugu weyni noqdo 1 baa la yidhahdaa linear equation markaa maadaama ay linear equation tahay graafka inoo samaysmayaa wuxuu noqon doonaa straight line graph haddana waxaan soo qaadanayaa isleegtii kale waxaan soo qaadanaya graafka sida loo sameynaya xiisada ku xigtaynu raacin doonaa intaynu xiisad lamida iskugu iman doono wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eewean mayno wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno